الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى أسماء ديسا كل جد وأسماء وذون وناكسن وناجا هي كمال كان ماشى وقصر رئيس كجارت وحكم إذا أسماء إلهي الشافي إلهي إنه يهي عافية متك wax bogsiya oo caafiya oo raysiya asmaada ilaahay ayuu kamid yahay ilaahayna subhanahu wa ta'ala magacyadiisa waa lagu bariyaa oo waa loogu tawassulaa ولذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم haduu qofka soo booqdo wuxuu oran jiray markuu u yimaado أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما دعاء ما يسترون بأسك كحه وشرد قاط رب الناس يا رب الناس ذاتك ربي قولوا واشف أنت الشافي إله عافي أديك أحمد وحافية لا شفاء إلا شفاؤك عافي ماد متشره إلا متك أذوق بحسد ماهن اشفي شفاء لا يغادر السقم إله عافي عافي ماد أن شر كدم بينن ووح شراء أن كتجهين إله عافي والدعاء عظيم وآد وين بلان نمبا الشلي يمد والشلي الصباح قلنكي هرو 4 ساعة 5 ساعة ميلها ساحي نين saaxiibkiisaha maalin dhaweyto qiso ku dhacday iiga sheekay markaas waxaan ku yiri waxaan rabi lahaa asaga laftigiisa inaan ka wariyo oo aan arko ninkii baan la kulmay shalay waxaan weydiiyay qisadii aan saaxiibkiis ka maqlay sidee ahayd buu igu sheegay wuxuu yiri dibadaan joogay Canada habeenkii baan seexday anoo iska caafimaad qabo fiyow ilbaa idamtay dam hal ilbaan waxba ka arkay dhag bay tiri خلاص waa seexat wax yar ka bacdi tii kalena waa dantay labadii indhood dam bay noqdeen wiil yar oo dhagalaaba ii joogu yiri haweentuna shaqay aada telefoonku hadaa dhacay asaguna maqli ma hayo aniguna uma jeedo markaasaan xanuunkan igu yimid dhaqaatiirtii baan aadnay wiil halkaan tag dhakhtar hebel u tag mid hebel u tag ana degdeg ah la igu sameeyay oo kala duwan natiijadii waxay noqotay waxba laga ma qaban karo markii daba dhakhtarkii wuxuu yiri ugu dambeeyay laba mid weeye inaad wadatid ay ku hogaamiya oo aygu aad ka haysatid aygaas aad gadatid yeena u shaan dheer oo la qaadatid dadka indhaha la qaataan labadaas mid uu yeel waqti kale iska lum anoo xaaladii labadii midna aan sameyn oo gurigii jooga ayaa magaalada Canada waxa yimid nin wadaada adeerkay baa u tago arintii u sheegay keen buu yiri markii la igeeyay wuxuu yiri waxaan musiibo kugu dhacday weeye ku sabar ducadaana waa ibaray buu yiri adhib alba'sa rabb an-nas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqam habeenkii baan soo kacaa salaatul leyl baan u soo kacaa salliga aan haysto dhinaca qiblada u jeeda saacad yar oo ku dul dhigama saa u taabtaa oo iska tukadaa buu ducadaana ilaahay baan ku bariyaa buu oo ku tuuba 3 bilood muddo intaas la eg markaan indha la'aan ahaa waxaan arkayaan aan la arag ayaan habeenkii dambe salaatul leyl tukaday ducadii ku ducaystay waan seexday buu salligii laftigiisii baan isku tuuray buu salaadii subaxiga oo aan la gaarin
subxigii markii la gaaray baa haweentii intay soo dul istaagtay ikicisay wiil haddaan saas madaxa u soo qaaday labadii indhoodbaba waa siday bari hore ahaan jireenba allahu akbar allahu akbar waa siday bari hore ahaan jireen markaas ay ugu dambeysay shalay oo aan arkay laga bilaabo waagaas ilaa hadda indhahayga wax yar wax weyn midna kama dareemin shalay oo aan arkay wuxuu waxba kama dareemin wax xun wax oo indha la'aana maantaas ilaa yawmina hada wax yar wax weyn wax iga maqan ma qofka muuminka ah markii dhibaatadu ay ku dhacdo waxa la rabaa qalbigiisu markiiba inuunan u jeesanin dhakhtar hebel isbitaal hebel kaasaa takhasus gooniya haysta kaasaa fa uusan fiirin ha la yimaado asbaabtu ha aado laakiin qalbigiisu markiiba si toos ah inuu ugu xirmo khaaliqul asbaab ilaaha keenay jiradan inuu ku xirmo ilaahay wuxuu leeyahay wa in yamsaska allahu bidurrin falaa kaashifa lahu ilaa hu haddii ilaahay dhib kugu taabto wax kaa kashfin karo kaa qaadi kara male ilaa isaga mooyaane isaga keenay un baa qaadi kara wa in yamsaska bikhayrin fahuwa calaa kulli shayin qadiir haddii ilaahay khayr kugu asiibo kugu taabtana waxaad ogaanaysaa ilaahay wax kasta inuu awoodo ismigan ashaafi ah aahaarta ka dhalanaysa rumaynta la rumeeyo waxaa ka mid ah inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u rumaysid oo ogaatid asagoo inuu jirada kaa qaadi karo dhib oo dhanna kaa qaadi karo ayaa ka mid labaad waxaa ka mid ah inaad ogaatid ilaahay jiro ma soo dejin ilaa waxaa ilaahay u soo dejiyey caafimaadkeeda waa ka nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa anzala allahu daa'an ilaa anzala lahu shifaa'a ilaahay jiro ma soo dejin ilaa ilaahay wuxuu u soo dejiyey caafimaadkii baa ilaahay keenay oo yaalla dadkii qaar badan baan garanahayn jiradaan jirra heble la yidhaahdo dhakhaatiirta markay baaraan waxay leeyihiin kaalmo yar bay leedahay laakiin wax dawo ah oo dabar goynahaya lama hayo waa ayaga aqoontooda gaaban intay la agtaago laakiin dawadii way taallaa ilaahay waa soo dejiyey wayna taallaa markaasaa intaas oo sano waxaa lagu hayaa bashariyaddaas horumar kasta oo la gaaray gaal iyo muslim caafimaadka si kastoo horumar kastaoo laga gaaray intaasoo cudur baa waxaa la leeyahay dawo ma leh halkaanay ku joogaan didaalkoodii iyo aqoontoodii meel baa lagu joojiyey jiradaas dawadeedina way taallaa ilaahay baa u soo dejiyey subxaanahu wa taala laakiin dadkii baan garan hadhowtaa qof fahmaya oo qof garanaya qofkaas markuu ku baraarugo ayaa dad badan ilaahay sabab uga dhigaya asbaabaha cilaajka lagu raadiyo oo sharcigu uu sheegay inay dawo yihiin u fiirso waxyaalana tajrubo iyo didaal iyo waxyaalo la barbaaray baa lagu ogaaday oo wax bani aadamku ay ku ogaadeen baaritaan waxyaalana waxyigaa sheegay waxaa ugu horeeya adducaa tuugmada iyo baryaha ilaahay la baryo ayaa kow ah ilaahay muxuu leeyahay isagaa jirada soo dejiyey وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الضوامضيدو هدي كا ويديان وانو دوا متك إبريا هيانا بريه سوان أقبليا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم كأه أو ينشيغي وحويان هدي مريض كلو أخريو إلهي الرئيسنا هي مركبة والنبي يقول من عاد مريضا لم يحضر أجله qofkii soo booqda qof jiran oo geeridii aysan ku soo xaadirin jiradaan u dhiman maayo looguma talagelin u dhinto qof jiran baa soo booqatay oo aysan geeridii ku soo xaadirin فقام عنده 7 مرات فقال عنده 7 مرات تضوى jeer agtiisa intuu fariistay yiraahda أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك كلمات قابلوا أسأل الله العظيم إله وين وحن سؤالنا إياه
رب العرش العظيم عرش وين ربي سوحا سؤالنا يا أن يشفيك إنه كعافيه تضبط شربك عليس حديثك لو وحو تلمام يا قعنت مدقت آيات كتب فيسا كلام صحيسا دعاء مركا كو آخرين يسوى كو صحيسا قعنت مدقت كتب كنا مصح حديث آسميس النبي يقول محويري إلا عافاه الله من ذلك المرض إلهي وكعافية تردا يضعه إلهي وكقاضي لكن قلبك حاضر مياه مركا إلهي الدعاء كبر يسد أو مريض كتيران ود عين يسد قلبك حاضر مياه سواء مغير إنه قلبك حاضر يهاي بالرباع وقلبك الدعاء يكسر بعضه أسبابها إلهي عافمات كأنه قد لقي وإنه يلا وحاكم إذا القرآن قرآن كوضتك لقوا آخرين منعها إلا على الوقات وجر الوقات ما وحان ميلها انت الله فرتي لمبر لقو شرها يو بقولال دولار لقا قاضي يقفك مكرفون وين دقاها الله صارها يو شياطين با لقا لدقا لما ياللي يهي قناعسي قال لقا دكتاي مايا هادي وقتها هسكاغلون dadkii intay tageen ba ayagoo jira labaad qaba ayay ka soo laabteen ba kuwii caafimaadka loo geeyay oo qofka jiran waday ayaga laftigooda soo wada dhacayba oo wada jiradaba waxayba noqoto meel cudurrada lagu faafiyo oo jinka lagu faafiyo oo balaadada lagu faafiyo oo dhibaatada dhanba ay ka timaado meelahaas noocaas loo furtay ikhlaas iyo daacadnimo aad bay uga fog yihiin illa man rahima rabbi aad bay uga fog yihiin ha aadi قرآن كان قفك كو آخري آتقاند وحنا هويديسن إلهي درتو وآخري أذوقنا هدا تقاند فاتحدا يا سورة الله وسوح قرآن كلا آذن أقوانين اسكو آخري حاسكاغا كو آخري المهاغا كو آخري قريغاغا كو آخري قرآن كان وادو إلهي بان الشيء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وعافما قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء دواويه إلهي حقيقي وإلهي نوشيغي وأن شكي يركو جيرين وكلام الله إلهي كلام كسيوي أكتا هذا ويناه كلها انت بدنا ددك waa ka warwareegaan marka hore markay isbitaalada soo maraan oo meelo badan soo maraan oo soo daalaan ayaa la yiraahdaa wadaadaha loogu yeero quraac loo sameeyo ha ku tufeen marka waxa laga dhigay waxa la isku daweeyay waxa ugu dambeeya laga dhigay niyaduna maba ahaba in waxa weeyaan markaas lagu aqrinayo laftigeeda qofkii wuxuu u hanqal taagayaa bal igu tufa meelo kale isbitaalo kale rag baan dirsado meelaha la igu maqaya bal iska kay tuf inuu asagu ka bilowdo caafimaadku kuna dhamaado kalaamullaahi uu yahay اعتقادkaas ayaa nagu yar markaasaan caafimaadkii aan ku raadin aan helin haweenayba sacuudiga wiilkeedu wuxuu galay xaadith shil baabuur buu galay isbitaal buu galay kooma ayuu galay dhaqaatiirtii waxay rajo weyn ma leh 4 bilood koomada ayuu ku jiray hal marna ma soo miyirsan isbitaalku iska yaalaa hooyadii baa la soo fariisatay musxafka ay keenatay kitaabka quraanka ah ay qabsataa way ku bilowdaa way ku dhamaysaa way ku bilowdaa way ku dhamaysaa way ku bilowdaa way ku dhamaysaa iska laag fadhida maanta dambe dhihi kala qaaday waa fiicnaaday dib dambe waayad dambe oo dhan ma zaala hayyan yurzaq asagoo caafimaad qaba reerihiisa dhaqanahaya ilaahi waa caafi ilaahi subhanahu wa ta'ala waa ku caafi حتى إلهي وحو كوغو سخيريا أسبابك له وإلهي كوغو تلقى هدي تشيران قرآنك وحو البكاور مري أسقى إلهي أسبابها كلا لفتي كده كوغو سهلة حيالها عافماتك إلهي نوغد لغي وحا كمدا ملبك هادو ملب صحي هي وادو إلهي سبحانه وتعالى بأنه الشيء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وعكمد الحبة السوداء نبي يري صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام حبة السوداء عذر ندوي أطهي جيريدا مركا لغا ريو
waxay culimada qaarkood kutubahooda ku qoreen tusaale ay ka soo guuriyeen dad badan oo ahlu cilmi ah cudurkan sarataanka la yaa kansarka ah oo khatarta ah oo aada la yadawo male qofka marka lagu arka la leeyahay kaalmaati u baa la iska kaasiinaya dad badan oo cudurkaasi ku dhacay دكتور أمين عبد الله كتاب كيس أيوك قرن ضد بدن عذر كأكو دعي بان أركيبوي أو كرئيس وحي يسكت درين حبة السوداء هي ملبك حوجا كيلو جيدان أو كدر درين إلهي بقول لا صارته وأنا إسك استعماله عذر ردي دقاتير تو أيران وحدة وأمله أيوك كرئيس تي أو بدن بان أركيبوي وحو يري الشيخ لفتجيسو كعبلا رجع معمول حرمك سؤال أن ويديه وحا كمد أها كور رمضات شرن أو لقى قوستي دودو أو يمد حرمك إلهي كو عافية ما عرفتين ترسي ما لها يلعب ضد كان تيجي دقاتير تيجي واحد دوام ملي هدين أنت إسكا صوت تجاه أو حرمك صوت جلان أو حبة السوداء إسكا استعمالا يا ملبك زمزم كان عبين إلهي بريان إلهي كو عافية أو أن أرجنا ترسي ما لها markii dhaqaatiirtii laga soo qoostay baa masjidka Ilaahay la iska yimid Ilaahay baa la toogay subhanahu wa ta'ala waxa kamida biyaha zamzamka wixii loo cabaana lagu helaa wuxuuna ahaa Abdullah ibn Abbas wuxuu ku ducaysan jiray Allahumma inni as'aluka markuu cabahayo Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da Ilaahu ilmi wasi' ilmi nafi'a iyo rizqi wasi'a iyo caafimaad cudur oo dhan aan kaga raysto ayaan ku weydiistay saas Ilaahay ugu bari jiray subhanahu wa ta'ala inta marka heshid oo Ilaahay ku waafajiyo waxa muhiim ah in qalbigaagu Ilaahay ku xirnaado oo marna uusan ku xirnaanin dadkan aqoontooda gaaban iyo waxaan la isku dardaray oo bani aadamku ay tajrubada ku gaareen oo ay leeyihiin waa dawada noocaas weeye waxaasi waxa weeyaan in aadan ku xirin qalbigaaga ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xirtid asalna waxa qofka mu'minka ah inuu yahay qof arrimihiisa Ilaahay u bandhiga subhanahu wa ta'ala intaada makhluuq u bandhigan Ilaahay u bandhigo waa inaad lahaataa umuurahaaga Ilaahay inaad u bandhigatid ana uleelka soo kac Ilaahay tuug baryaha ku celceli Ilaahay subhanahu wa ta'ala faraj degdega Ilaahay ku furahay haddii inta Ilaahay bariday oo Quraan isku akhrisay cilaajkii iyo caafimaadkii uu ka soo daaho ha u arkin inaan waxba laga aqbalin Ilaahay inuu ku dibdhigahayo oo xikmad ka leeyahay baa dhici karta maxay tahay nabiyullaahi ayyub Ilaahay waa jeclaa nabi Ilaahay buuna ahaa jiradii 18 sano yaal oo jirana ahalkiisi baabeen awlaadii laga qaaday maalkii laga qaaday badankiisina uu jiray وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أي إلهي كتوك سبحانه وتعالى إلهي بودوا إله دباتا إتابتي نبا إتابتي أذوقنا وحاته أرحم الراحمين أنت النحريسته بتكون نحريس بدن بعض إله النحريس مرقا ساعة عافمات دق لسي مالكي هي أهلكي ولا بتشبارنا لو سعلي ولا سي أنت أصلا إلهي امتحانا سجل وقفيرنا إلهي وحو أدبنيك كرا إن لغوغو تلقى قيامها درجات سرع وهذا الفيلة إن لغوغو سيو إن لغوغو سيو درجات سرع وهذا الفيلة إلهي دنبقى كوغو ضعفو جرداكو هاي سدرات وكان النبي يري صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة dadkii adduunyada caafimaadka haystay waxay jeclaanahay hayaan qiyaamaha xiina yu'ta ahlul balaa'i thawaab markay arkaan dadkii adduunyada ku jirana oo dhibaatadu ku haysay thawaabka iyo xasanaadka la siinayo weyninkiisa markay arkaan waxay jeclaanayaan law anna juludahum kanat fi dunya quridat bil maqarid haday adduunyada markay joogeen inta jira lagu salido xibnahooda maqas lagu googoyn lahaa oo cadcad loo jarjari lahaa oo ay ku sabraan oo maanta xasanaadka la siinahayo dadkii adduunyada ku sabra ayagana la siin lahaa ayay tamaninayaan oo jeclaanayaan wayna marka taas ogaataa in Ilaahay kuugu tala galay dhibaato maanta ku haysa
oo lagu dib dhigay inay maalinta qiyaamaha dadka ahlu caafiyada ay ku tamaniyaan sida adigu maanta aad u tamaninaysid hebel waa ka luga fiican yahay hebel waa ka caafimaad badan yahay ilaahay hadduu caafimaadkaas ku siin lahaa lugihiisa kale haddii ilaahay ku siin lahaa ayaa tamaninaysaa laakiin ilaahay wuxuu kuugu talagalay khalaa'iqdoo dhan inay tamaniyaan alla adduunyada markaan joogna haddii dhibaatada hebel ku dhacdo kale lagu dhici lahay حكمت بدن بقى إلهي كلها سبحانه وتعالى مرنا النحريست إلهي كقوسا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى